وياي كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka siyaasadda oo inoo soo jeediyay Cali Xaraare taariikhduna maanta ay tahay 11ka bisha 10aad 2024 maalinimo Arbacaha barnaamijka xalqadiisii 551 shaqa socota Cali habeen iman wala shaqeynaa meeshaan baabuurkeygana waa naga saaridee waa dirtay waa gart marka shirkadda ha mogaanin waa gart barnaamijkeeni kale ayuu gudageli doonaa hay dabcan digniino aynu halkan uga dignay dadka ummadda Soomaaliyeed oo aynu war dagaalmina war laba ciidan oo la is hor keenay way isdilayaan dabcan oo dawladda federaalka nagu tiro anagu dagaal ma rabno dabcan meesha ayaanu diyaarad ku soo daabulayna waana ku yiri ma macdan baad ka qodaysaan maya mise dadka ayaad ka gurmad baad u sameynaysan daadad iyo aafooyin ayaa ka jiro ayaad ka jiro meesha waay waaniga in war ciidan sita oo meel la geeyay macdan qodi maayaan dabcan ee ka jooga dagaalku dhacay saakay dhacay waay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe waa jabhad dagaalyahan wani jabhad waay oo noloshiisa inteedii badnayd xabad uu soo jiray lugtan bidixdu ka dhutinaya dabcan bariba ay satimidi midtu ka dhutinaya gacantana saa soo laabay takala saa u baxsan marba waa nooc salaad marka la tukanay mar xagna loo jeedo xagna loo wana nooc badan marka salaada jibca la tukanay dadka istaw lanka toosii soo maray isaga istaw la maydhaa meel baxbad ba kaga taada صح hadba dhinac waay ninkan waxa soo haray xasasha oo ciyaalka xaafada ciyaal casiir babay ku soo koray waliga xabada ridin qori aan qabin xalana soo marin buugi qanuun la daba joogay meelaha ku qorqoray labada shakhsi horta ay kaliin waay marka jabhadkani wuxuu qabtay 15 maalmood صح labadooda waaniga iri labadooda mid danta umada ilaalinaya kuma jiro waa sax qaar wax moodaan waxay aaminsan dadku nin hadaad reer macaan quwaxa korxtaas ku timaadaan inaad u difaacaysid reer macaan quwax صح anuguna reer macaan quwax inaan cid difaaco hadii ay suurtagal tahay magaalada baran oo aslahaan ka soo jeedo ayaa ka sheegaa waxa dhab ay ka dhacay dul wixii ka jiro waa sax kuwa sandin isaga saar la oran lahaa bal maanta xaafada كوريج وايه marka hadii aan cid u xal qarinayno xaafadan u xil qarinaha طبعا meesha waxaan soo fadhiistay in ummadda Soomaaliyeed gaarsiino wixii jira wixii dulmiya ee la sameeyo xaafad iyo sheekadaasna inama taalo waaye marka dadka inta in yarba inta aaminsan inta saan raba inaan u caloosho fiiriyo waaye ma jecel maanta ma jecel diyaarna ma aan ka warramo wiilal Soomaaliyeed oo islaayay in sida dadka meelaha ka hadlayaan kuwa sabadiyay kuwa saadkaaday kuwa maxaabiis qabtay waa la eriyaday hubkii baa laga qabsaday arrimahaas oo way laakiin waxa sheegay inuu ninkan nin diyaar ahaa oo ku xasan ciyaar diyaar iska guray dad way waanigi barnaamijyadii hore ku sheegay sax in dadka meesha ku dhashay Jubaland ee askartii ay nimanka kale ka khabiirsan yihiin oo ama Turkiga waxa ku soo bartaan ama Jarmalka ku soo bartaan dhirti bay kala garanayaan baa deegaankii bay garanayaan dabcan biyi bay garanayaan sabcan shabeelkii bay garanayaan sax maroodigii bay garanayaan ninkana waa ciyaal xamar meeshii la geeyay hadii qoraxduba ay dhacdo casariiq noqoto waxba kala garan maayo meeshii saxana taas waxay keentay dagaalka horta uu dhacay dabcan wuxuu ka dhacay dhinaca dhulka loo soo maray way nimankii federaalka ahaa meel la yiraahdo Odow ayaa deegaankiisa way xaqii al-shabaabkii baa la soo dhex maray way iyaguna xisaan xaqan al-shabaabka iska ilaal shay wax badan ma jire ciidan Jubaland kama iman karba dabcan laakiin xaqan badda iyo ereedeeda inba xoog saari doona iyo doonyaal lagu soo galay way sheekooyinkii hordhac ahaa saddex dooyad baa isdhiibay waxaas waxa ahaayeen sheekooyin lagu soo xireen gelinayo ciidamada Jubaland way waa propaganda aan ku sheekeynay political propaganda waxa la yiraahdaa waniga nidila siman baa waxaan soo jireen dabcan ka soo gud way ciidan Soomaaliyeed in loo sameeyo propaganda ay isku diri karaan oo beenbeen iyana khalad weyn baa dabcan halkaas laga soo galay inamadii federaalka hay dabeetana dagaalkii baa dhacay bilaabmay dagaalkii markaa dhiisatid meesha horta weeriyal ma joogaan oo wax soo tabinay madax banaan sax nin walba sidoo warka u helay sax nin walba wuxuu sheegay warka sidoo isugu jecel dowladda federaalka waxa leedahay laba baawd baan ka gubnay maxaabiis baan ka qabanay qolada kale leeyahay waanu qabsanay maxaabiis baan ka qabanay laakiin waxa jira lama qarin karo way
askartii ama ciidankii federaalka digada laga dhigay والله بربري labada dhinacba khasaare soo gaaray صح ballaaran صح qaybta federaalka digada laga dhigay وايه waxay geeysiisay kabtaya arkay baa ka dhacday ciyaarkeena ها deegaankiisa deegaankoodina ma eedna anu ma eedan ma leeyahay maxay xisiga in waay kan loo Soomaali kan loo Soomaali طبعا ها orodku waxa ku galan Kenya xuduudii dhaafeen waxaan aad uga xumahay maanta Kenya oo idaacadadeeda leeyihiin ciidan firdhada oo Soomaaliya oo dowladda federaalka oo Soomaaliya ayaa noo soo galay ee qaxootaan isku soo dhigay oo magangalina weydiistay waay inamada u galay waxay ka baqeen inay kuwa Soomaalida isu dhiibaan طبعا oo kuwa Soomaalidu gowracaan wadileen inay dilaan bay ka baqeen sida tad kor 2022 maartay gada ka dhacayso kale tood ciidamadii Cabdirashiid Janan markii uu dawladda maartay Jubbaland ka soo goostay oo mar isku day inuu gobolka gada gooni u qabsado Axmed Madow soo horjeesto waatii ka dhacday kale tood hadda marka tii dad taasi dhibaato badan la isku geystay waa la isdilay ciidamadii waa la dhibaato badan ka dhacday Cabdirashiid Janan Kenya gala waa baxay hadda marka kuwi meeshii taagan tahay marka wax isbedel habeeraatay wax isbedel marka maanta waa ayaan daro in intaan wixii kala dhan soo dhameeyay dagaalkii qabaa'ilka in ciidamadeeni iyo ciidamadeeni tuuta haystay in istiraan waay in hadana magacyo qabiil la huuyo iyana waa ayaan daro kale waxaasna waxaan ku dignay way inta u dhaaf maayo maadaama yihiin dadka istiray dad Soomaaliya u dhaaf maayo sawiro laga soo qaadi karayo waan kula wariyaal ma jiraan laakiin laga yaabo in picture-rada qaar kood in la helo waa sax kuwaasna aanu keen maayo laakiin arrinkaas wuxuu ahaa arrin lagu degdegay oo dowladda federaalka ee Soomaaliya qaladkeeda leedahay waliba propaganda iminka ay ka wado TV-gii qaranka yarkii maxaa magaysa العدالة TV-giisi ayuu maanta wuxuu soo saaray in ciidamada qaranku ama xoog dalku ay raas Gamboni u tageen si ay ula wareegaan dhulkii admis ka baxday kula haye marka maanta oo dadkii dhinteen ayaan leenahay ciidamadan waxay u tageen in ay bedelaan ciidamada admis haddana warka loo soo saaray cawad maalmihii hore maxaa lahaa hays dhiibo maanta waxa leeyahay Axmed Madow ma nasocon caaw maxay soo qoreen waxay soo qoreen cawada maaragtay in ay leeyihiin cawada caaw miya saaxiibada dambe cawada ayaga marka Soomaaliya dacwado u tago marka tira cawada caawadan caawa mise waahmeen dambe cawada aan joogno cawada cawada aan joogno cawada aan joogno calaashan waxay soo qoreen in maaragtay ciidamada dawladda aysan amar u qabin in ay dagaalamaan saas darteedna ay u baxeen ee Kenya ciidamada ay u galeen marka amar uma qabin laba wiil Soomaaliyeed inay isdagaalaan maadaama waxa isgarabsanayay ciidamada maaragtay Jubbaland iyo ciidamada Malaysia oo maaragtay kooxaha qawaariijta ka tirsan العدالة waxaan leenahay saaxiib umada xawaale umadu TV-gan waxaad ku qorqoran ma akhristaan wixii meesha ka jiray oo dhan bay ogyihiin wala socda sida inagu baan la socno dabcan marka inagii waxa ogeyn hadaynu warqada العدالة akhrino hadana waxaan ka sii qaadaynaa qalbi xanuunka sastar ka soo ka gudub way fanax waxaan jabiyay oo ciidanka dawladda federaalka ku jiray oo lahaa waa inuu isdhiibo Axmed Madoobe waa dhaawac baa leeyahay saasal sheega saasa warku sheegaya way horna uu dhaawac ma jiray xabad waa taqaan ninkaas xabad isaga waa taqaan Axmed Madoobe labaad way qoladan kulay markay tukanayaan bayana dhinac way استوى ما قبط أي ويا كيني أنا نقول سنة عاد يقولون بنقول سنة وحصل يا السبب حسن شيخ يا أحمد مذوبي يا هذا السبب السنغونية حسن أوديار ذا كوسو دابلي ويرقبل أيام قبل سنة يا ومد بدل عندك أنت ويا يضح بقول حل هلا شلون أقولها كسمايا كئيمة صح ماشي بروقة تعالى يوناق تعالى برضه حسب حلينا هذا يشرون الشلي ما تكينه عن كبير كانوا وأدو أمانة يو هرمرك كتير أحمد مذوبي ماشي إمك إنه وصل هذا منه أنت إن لك أو هرمرة وأحمد مذوبي كسمي كسمايو ما شفته ويا وركي من المدرسة هرمر كتيرته سكول بانسمن عفبال بانسمن حسن كي ماشي تجي أيام منافقة درادات كله برواقة كان على مش نيويورك بأكتر إنا لله حسن الله أفلانتس كده ولا لو قالي وي يا سيلو حسن شو حبه هاي إنه النصط ودالي مدحوناش أدونك بالبيقات انفصح صح وحتى كان مالها حيبها بضة وسوق الميستان وسول نفسان إيه الكود بيسوق أركان بوغني وراغاني تلفون يقدر يبيلها صح حسن شيخ ما أنتوا إلى حدا ما لنا منظم إلى إسكده وزير مدحتوه حلباني ونقضيه إلى وزيرك هوانك سجعة إنا لله
hadda wasiirka qoyska loo bedela Soomaaliya ma dhihin wasiirka haweenka wasiirka waxbarashada waa isaga wasiirka maxayga waa caynka wasiirka macdanta wasiirka tamarta badaroolka wasiirka arrimaha dibadda safiirku waa isaga miyaa arixtaa inuu physical isbedelay ha oo durba gaboobay oo uu kala socdo teeramka hore teeramkaas isku mid maaha ha marka isaga laftiisa caafimaadkiisu waxaa kaloo ka mid ah xanuuno yareer baa jira oo dawooyin nasasho inta badan u baahan oo qaadan karo hadda waan isu sheegayo qayb ka mid oo qabo ADHD baa la yiraahdaa xanuunkaas meel bay kaga dhigaysaa laga fujin maayo dadka qaba ADHD haddii uu cajiro daarto oo xasan aad sabta u soo baxo soo galab maalinka ilaa subaxii waa dhageysanaa ma garan karo xasan iska bedelo bal cigaalna dhageyso ama dhuule waxaan ku hadlaynaa xanuunka ciladaha caafimaad ADHD uu leeyahay ee ah wixii inaad waan ku xasan sabtar heestiisi ayaad iska bedeli kareen ilaa qof ku yimaado ku raado hadaba heesta xasan nasiyo bal hebel la geli waa sax ma diiday way balle taas horta waa taa xanuunkaas wax ciladu leeyahay ku sheegay qofku wuxuu neceb yahay in hada lagu celiyo مثلا دول هذا عن صوشة هينو ما ينقدر بشاه ما أنت هذا ندهله إلى وشاهي يلا بحول الرعم ويانه ما جرت قولوا تشبنيه ويا حسنا درين كسو كتير دو حكى هذا ما كفت ما وحقيقه وحكم ذا إن قفك أي وحكي لكتو ماشي كذلك لا لقوي هبل قولوا حكى بحه وأنا بحا سكة الصعود لو كان الله مسحول لما يدائنا دواويل كيسي ما يقول لي نكا وأنا بحا بح ليه مركو عنتا عنايو قفك حنون كاغبا مركو فرحش هدات رايد بسم الله يده وكو ايه وحناقيا حاجه قال بسم الله انت بلا بسم الله كو عنبورنا مركا مركا هدا حسب عمرويا هدات رايد وحبا بسم الله ورنا اسك فرحلو انتو كو ايغو اي ورنا سنيده بسم الله الرحمن الرحيم دلق حنون كاساله وايه مدحينه وحبايك قفك اي كدغيسو waxa kamid ah mar baan garka iska xiireen dufta hada wada ka dhigso mar baan garka iska xiireen waan soo martay oo adigu yaasiinhan ama wad xiiri kartaa ama nin shicibaatay iyo anagoo kale laakiin adigoo mas'uula ayaa lagu barayaa garka madaxweynaha bixin in laga tiro mooyaan may muleeyo sidii ku wadana garka diisan leeyahay markaas u xiiraya xasan ciladaha haysta waaya wardanigan warkiisa inaga daa may ورحمة مدباني واحد بس كان مي ديارها نكدين راسكبوني مي حمسة وبح إليه إن أنت سامرك علدا صايست وباهي هاي حسن الشيخ نصش وباهي هاي سيد الدسكة كله هدي عاد عليس كلن سود السارتين دي قوالنا صح مساعد كوير عليه إمام طبعا إيو نين مؤدنة صح وكأنا كلا سارين سبك الدونة نقول بس وش قديس ما هيست إمامكم يو أوران كرا حد أدم الله أورد أدن واي إنك تايمك إلى النيا مؤذنك التايم كيبرك مؤذنك مؤذنكم يو أوران إمام محدث كنت تشين الله وإنه أسيق أقيمة نكانت مركو أقيمه ولا سلسلة وحدوني مدحينه إنه مساعد كي تشيو حسن الشيخ مؤذن مؤقم إنه أدمه إنه أقيمه إنه لا استوسية إنه دسك أدعي هذا مسكين كريا مسكين كرس ما وكلا شغل دون ده dhibaatadaas ma oga waaye laakiin waa wax ku maqan isaga aakhir waxa ka bixi doona qolo maandhood lagu galay markiisa Suuriya jeelash oo xitaa magacoodii oran kar waayay dabcan dadkii leeyahay daakradii ama memory-ga ba ka lumay maskaxaya marka maskaxda soo shaqo saddeedana tahay memory-ga ka lumaya dabcan marka saa wiilkiisa magaciisa ma Xasan Sheekh maxamed ay Umar ugu yeedhay عبد الفتاح عبد الفتاح هو أبو إنه دارو قرنيه عبد الفتاح كالي أقول له أي لو ريع عمره كالي أما حمزة لحمزة هذا وش غيه حمزة مركزنا حمزة وايو يرك وحمزة ما عبد الفتاح وعبد الفتاح بالله أب ما نبل مركزنا متكلم ويره جوبه وزير جوبه جوبان قرب هذاش وحسب قصص على وياه أوكي شركة تركيا أيا إمك جمعها اللي صاري أبي أحمد يبغى وظف فرديح يهدي يقول هاي حسن الشيخ وياه حسن الشيخ يو أبي وحكى صباحي أنت وهر صور لها هذا صباحي تانا وحكى مذا إن دود إثيوبيا وقلاتهم مذا حبناني ذا الصوماليا that means Somaliland in ignore جريسو طبعا وترى الصوماليا وامد صح
iyo in la siiyo bad qaab ganacsi ama access kii la sheegi jiray access inay u yeelato inay isticmaali karto meel ay gasho ay ka soo adeegato ay baxdo soo rarato soo marto waa sax oo macawudadeeda dhulka ah waay taamarka la ogolaadana heshiiskii badda iyo qiimihiisii xasan ay baa saxiix doona baarlamaan baan ogeyn nin kalaan ogeyn labadooda okay madaxweyne xasan sheekh oo qodob ka dhigay ma arki karayo ilaa shirkii maaw ee muuse bixi iyo ay wada gaadheen axmed madoobe abi axmed ay wada gaadheen wax ka yar lama hor fadhiisanaya ninka odayga in shirkaas waxaa si laga noqdo isagoon ka noqon abi ayuu soo hor fadhiistay shirkii maaw iyo muuse bixi ayuu la fadhiistay kow waan taa sheegnay waana sii sheegnay saddex barnaamij ka horan sheegnay waaye maxaan maanta nidhi wuxuu la fadhiisan doonaa oo is arki doonaan abi axmed ama ha isku arkeen maartay afrika ama ha isku arkeen turkiga utaado meeshii waa soo gashay intii aanu sheegnay maalinteed waa taas waaye wixii ka soo baxa sawirkana dee waa la wada arkaa inay wada fadhiyaan dabcan waaye waan ka gudbi doonaa intaasna cali masarka madaxweynaha cusub ee somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cigaal ciro ilaa hadda ma la wareejin miya ciro caawa ugu dambaysa dee ciro dama lama odhan karo cigaal ma madaxweynaha la odhan doonaa madaxweyne ciro saa sameeyey magacaasi waaba hawari doonaa marka waa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waa cabdiraxmaan ciro loo yaqaano naalistiisa ayaa la qabanayaa caleemasaarkii berito maalinta berri waaya intaanu barnaamijkeenu bixin ka hor iyo dhici doontaa laga yaaba kadib uu dhici doonaa caleemasaarkaa waxaanu sheegnay iyadoon dhaweyn in madaxweynuhu uu diiday oo yidhi anaa maamulay waayahay waaganu sidaan nidhi bil baa ka sawiraya dabcan bil ka hor ayaan idhi haddii ilaahay kuu ran yahay madaxweynuhu wuu diidan yahay markaasaa dad ila soo xidhi waxay idhahdeen calo maxaad somaliland madaxa isugu gelinaysaa waa laysla ogol yahay in la wareejiyo xisbiga wadani baana soo sameynaya cidda uga soo qayb geli doonta sax ma soo sameyn xisbiga wadani caawan leen waa loo sameeyey madaxweynaha soo sameeyey hore muuse bixi waxaanu sheegi doonaa dad uu u diiday uu yidhi ma arki karo waa ima soo qayb geli karaan iyo dad uu yidhi way iman karaan laakiin ma hadli karaan waa speech la siinay waxaanu sheegaynaa iyadana wafdi ka yimid Djibouti laga soo diray oo laga soo abaabulay inay ka soo qayb galaan horena uga soo qayb gali jiray ayuu yidhi ma iman karaan oo la diiday sababtana wuxuu yidhi sababta waxa weeye buu yidhi Djibouti iyada irdeba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hay Djibouti iyada irdeba sekur Djibouti waa la shaqeey jiray waayahay wufuuda imanaysay maanta wasiirka beeraha أحمد محمد عوارض نلا يلاحظه كو نكلا أو يسوون تمرت هايستا يونس علي جولد بالله يلاحظه زي سدة قبل لا يلاحظ في علمي جبريل أو يدنا قدام يكحن برلمان ككا وين أفر صار اسمها أفر حبنا ذا كله أو حبنا كا برلمان كا أو كمدي هاي حسين عمر يو قبل لا يلاحظه هبة علي حسين وين إلهي إسماعيل قبل لا يلاحظه سليمان ظاهر هي علي زيد أحمد وسوم الله عربة هي محمد بوح هي iyo محمد أوليتا هو حزبية معارضة جيبوتي عنفرتا محمد علي قاديل لبا كمدا وايه انت واحد دير نيكا وكيلك جيبوتي وا سوماليلا ايا كجيرا هي سوماليلا way fadhigiisu wakiil Djibouti yahay ma iman karo isaga ayaa hadaba si uu wasi hor dhaco waftiga airport-ka maanta laga celiyay hargeysa dib noqon laga iska noqo bi inta soo gaaraan iska musawa waayo Djibouti iyada ay ridibay Muuse Bixi haye Djibouti-na iyada dhistay dargi hore oo imaanay 2017kii Djibouti waa dhistay laakiin madaxweynuhu muu oranin waxaan u abaal gudiyaa Djibouti oo dhistay laakiin waa iridu leeyahay laakiin maanta wuxuu leeyahay way riday inna lillahi waxaan ka garan karaynaa marka Djibouti oo isku haleynayay inay riday way hadaba Djibouti riday hay ina aw Saciid weeye asaka socdaga ganacsade ina aw Saciid waa nin Somaliland u dhashay ama ay isku reer macqal wax yihiin Muuse Bixi hase yeeshee Djiboutiana dhalash Djiboutiana sida weyna dhalash Djiboutiana sida weyna Djiboutiana Ismaaciil Cumar Geele ayuu wakiil u ahaa waa ninkii Fangreeniye Muuse Bixi isaga Muuse Bixi ويستلين دجالمين وياه لوكاتك حتى موسى بيحي فردي يقدم بيتان دور شطو الحين مع مكور
caagad biyaabo ku tooray waf caagadan dabacada uu leeyahay Muuse hadda ka hor ninkii Faysal Faysal uu laabta ka dhuftay ha ninkan uu ku halgaaday waaya maxaa la isku haystaa dhul iyo deymo malaayiin oo Muuse uu ka qabay ina uu Saciid oo uu celin waayay oo uu yiri waliba lacag kale igu dar oo aan doorashada ku galo سووا كل شيء دول دي ولا عليه عقد وكدوره waxa keentay wixii lacag u hayay inuu u wareejiyo ciro ماشي كيف بحيس كان انا iska bareebur انا طالع dabeetana Muuse waa ka dhacay dhacay Muuse na dhicida waa ka inuu Saciid ka badbo Djibouti saaray waaya adoogi Djibouti waa gart intaas oo dhan baa dhacday hay waayahay cali masaarki Djibouti waxa isku hayeen ku sheeg doona hay lacago ka maqan ayaan dul mar doona laakiin waxa ka horreysinaya dadka loo diiday inay ka soo qayb galaan xafladda haye ada ay tirin doona hay ko xildhibaan Abiib ko maxamed Abiib wala dharsanay ma iman kare buuri inna lillahi hay duqa magaalada Hargeysa mooge labo Cabdikariin mooge asir waa lagu soo daa oo indhoweyd reer Hargeysa ay ku dhiganayeen waliba reer Hargeysa dhimaa in yaro baaratay macal quwaax Muusabix waaya Sultan Xasan saddex sultaanka guud ee Soomaaliland ee Subeer awal لا حول ولا قوة إلا بالله سلطانكي موسوي سلطانكيسي ما شو كان وانكي هباري إنانو هيرين مدحونا سنتك وانا كدعي إنا لله هاي سلطانك لما أقوله هاي ودي ذا قرحج كله والسلطان عدم موسيقى وكمدي هاي وين ممنوع لا حول ولا قدي ذا هبر شعره ممنوع هاي بغور بور مدو ممنوع هاي وفدي جيبوتي ممنوع إنك بوريري gurigiisa aanu ka dhigto meesha hebel gurigay miga soo gali kartid inta soo dhan liiska inuu kuma jirno anaga banaanka joognaa inuu banaanka ku joogno waaya alxamdulillah waaya imika haddana waxa la qaban qaabiyay arrin kale iyo mudaharaad qaran dumis kala ah intee la wada mar Soomaaliland waxa tiraahdaa cadawgeena koowaad waxa weeye Soomaaliya waxba kama jiraan yaa marka cadawga koowaad waa isla iyaga dhexdooda ay asaastaan beesha dhexe iyadaana tiraahdaa anaga Soomaaliland keenay iyadaana burburisa cid kale oo eed ku leh jirno waa sheekadan cadkayga ku cunaa ma ku ciiday wala darafyada wala samada wala badda cadow kale ma jiro aan ayaga ahayn aan beesha dhaxaan iyagu baa isku ah imika ma maqlishid cadowga gudaha waa maqli jiray garxaj beesha la yiraahdaa wahay imika beesha Sacad Muuse ayaa ah cadowga gudaha cusub waliba والله والله اسكو دحي عدو gudaha hore khibrad bay lahayn dhowr sano sax 10 sano oo khibrad bay haysay عدو gudaha cusubi khibrad male dagaal had bilaa aan caalam sar ka dhimay durba mudaharaad sameeyay inta socdaan mudaharaadkii maxay leeyihiin qarankii wuxuu raacay Muuse qarankii wuxuu raacay Muuse inna lillahi wa mu'aaradin bilaaban be ninka berita la dhaarin doono ayaa durba loo kala tirinayaa dadkaas waa ayo mu'aaradku waa inay noqdaan hadii jeer dad isku jiro kala duwan dabcan gabdhaha imka halka inoogu muuqan doona Muuse adeerooda kulligood haddaba waa ay dadka soo qaban qaabiyay ee keenay ee yiri mudaharaad sameeya aleen Muuse nin cajiib buu ahaa qaranku isku hayay isaga cadow la dagaalamayay qarankii buu isagii buu raacay maaha Muuse bixi oo qofka ka hadlay Muuse bixi ma oran Sacad Muuse mudaharaad ii sameeya صح hadalka sidiisa loogu tagaa ragga sameeyay ee Muuse iska dhigay guulwadayaasha ayaan ku tirin doonaa guulwade Maxamed Cali Bile guulwade Maxamed Hebel Daarood labo Maxamed Cali Daarood guulwade xildhibaan Sikaawi saddex guulwade xildhibaan Jamaal saddex afar guulwade duqii hore ee Hargeysa Solteeko shan iyo guulwade xildhibaan Cali Qaran lix لحسن قرن ولكن مترو قدن قرن ولكن اسكده ولكن اسكده بلغ الباب انت اسبا واسكو حافظ بدنكود علي هورت هل مره كا دخغلو waa maxay nacamlay horta su'aal nacamluhu gulwada adhe gulwada waa maxay gulwada way gulwada wax weey ninka taageerada ku siinaya ay ka badan tahay intii waajibka u lahaa adiga kugu mudneed way ninka ku amaanaya amaantaadii ka badan way ninka adiga daraada u quraac beeli kara jacayl ku qabo oo beenbeera sax si positionkiisa aanu u waayin way oo mar baad u tiray gacanteeda midig hadda ka hor waxa dhacday
ma sheego intii laakiin waan dul mari doonaa maadaama aad qodqoday mid kamid ah madaxweynaashii Soomaaliland soo maray ayaa nin wasiiradiisii kamid ah ayaa la xantay waay waxa madaxweyne ninkii hebel wasiirkii ayaa la hadoo garbkiga midig waxa la sheegay maanta inuu mucaaradka masaajidkii mucaaradka uu jimciga ku soo tukaday waay madaxweyne waxa la qimay hay masaajidadii baa markaa mucaarad iyo maxaafad kala leh ku inoo dhaw ma tagine nimankii odayaasha ayuu tagay ayuu masaajidkooda ku soo tukaday waay that means waa ninka adiga kuma jecla ee kuwaas u raacsan waa sax nimanka marka warkii loo sheegay ayuu soo galay wasiirka oo labisanay haye dawladda madaxweyne waa si kaftan u yiri waa la sheegay maanta inaad masaajidkii ku soo tukatay mucaaradka waay intii la xamatay ee ku tirina wada taagan tahay sax waxa arkay madaxweyne xanaaqsan sax oo leey mucaaradkii baad maanta la soo jirtay u tagtay ragana in rag waxa ku yiri yihiin oo ogeeyay ninkan waa very smart sax laakiin wuxuu yiri arrin dambi ah ilaahay ha u dambi dhaaf isaga laakiin hadalkiisu ma soo kood garanaya way wuxuu yiri madaxweyne ma bad kitaaba laga yiri ana tukada baan ma dukutaa laga yiri ayaa laga yiri hay that means ma kitaaba laga yiri waxa weey salaad bafooda ma dhigo maxaan mucaaradkooda ku soo tukada ama keen ku tukada aan mu tukaday واسمتي مدحوني مركو نحي وهجري وفي عندنا بين بالله كاشيك بير والله نبي ما أروح في عندها صح لكن وحيد بين بالله كاشيك هلا وإنا لله وإنا مركب قف كي بحتى عبادة ديسي آخر ديسي وقفاية وحي أردن حق وقفاية وياه وحنقول حستحلي محمد سابر نبى ترى حسب بقى كعنك أنت وذاك شيء سرك هاي هاي إسكالك تمر كدتكو أي ميل سوي مادام مدحونها جمهورية الديمقراطية الصومالية أيان سلام قالي إنكسر مدحونا سلام صفرنا مجرو وهي إذا عدى لقيس الدنيا وحا وي تبي تروح يري ما أنت دنبه لحد الصبح نبو أي محمد سياد بردوف بحي وبح لحد بركي وركي إذا عدي الصبح نبو إيه بحي الله يفكر واحد وصل داي إن مدحوني جمهورية محمد سياد بري ولو في الكويت صحيح حريف كنا مو هاي قالوا والله بنصلا حافظ يوم قلنا واحد دقمة وضدك يسوي مادين ياخذ بدي بالله وحول حافظ دينا هنا جيدا يدتك كنا سيجارة مدحينه ساكب مدحينه فرين دق قورنوين هاي ويمكن يسوي بي وين سلام ما يجي السلام قال يا إيه جارسيا خير وبري أو خير بوندير إيه جارسيا صوت ساكب مدحينه دتك كنا لحظة بركي أي وركي دقيستين وهي صعب كيوت مويه مركب أول مركو لا ضمن الحين هذا سلامي بعض ورد وحارك دت كان عبس عبت مين نبى سوق عوحيلي ما الحل قال لك دقيقة أضيق ودافع إنا لله وإنا إليه راجعون قولوا هذا ودي سواكها وهي بمعنى أب سومالي مركب حنا نقرأ أب سومالي وحنا نقرأ يا قولوا ذا وانين نك الدولة دوحها عيدنا ورد قولوا ذاش أو أن أقول لهين صح oo aan wadaniin ahayn laakiin la soo diro dadka qabta sharci darro waxa doonsan sameeyo marka nin wax og ma ahayn laakiin ninka soo diray nin og buu si fiican marka ninkani waa nin position ilaashanaya baan ku yiri waaqici ma ahan oo aan waaqici laabtiis calooshiisa waxa ku jira sax aan ahayn ninka birita marka dhacdin qoladii uu sharciyay ay raacaya waxa kamid ah dadka golayaasha dhabta hadii aan ku sheego hadaladooda booni كو يحنف لبضع هو وين قولوا ياشا سمالا واي بطلان بيليهن وحليهن ماشي اللي هذا كونفور مقدش يليهن وحليهن معمولة أوردن طبعا مركا كل ضايع منه واي هاي خبشة إن لسمية مظاهرات كان صوص على oo imika qaybna la sameeyay qaybna Britain la sameyn doono oo dadka lagu kala geynayo oo la tusay dawladda cusub hadalada ku dhawaaqay waxa kamid ah kursigii oo madaxweyne Muuse uu hadiyad u bixiyay nin warkiisii oo hadiyad buu sii maana laga ma badin way bal mudaharaadka in yar ka tuso على هذا عادي وقراريني يا هذا عادي وقراريني طلقوا قرارين هدبا
dadka aan ka sheekayna golayaasha hal cilad xanuun baa ku dhaca xanuunkaas waxa weeye ninka inuu camleynayeen markuu dhinto ama meel ka tago ama hawshaas ka burburto uu isku dumaa nolosha ka dhaca wuxuu noqonayaa nin aan hadli karayn meel laga hayo aan la garanayn dismoral finish buu noqonayaa iyad buu kuma warjaba ninkii kale dawladda la shaqeynayay ee xooggiisa aqoontiisa ku shaqeynayay wulisiisi ma markay ka dhamaato taksiil uu noqonayaa waxa rasaa ninkii taksi soo ful oo isku kalsoon oo ciyaalkiisa biilanaya kuwa ciyaalku ma biilan karaan adoo sir zarin ingiriisku kalato marka shaqada laga boosay zarin ingiriisku ah Great Britain marka shaqada oo ka tagay xilka laga qaaday adduunyada soo qabsaday kii kale muxuu noqday wasiir noqday asagoo wasaaraha waa soo noqday wasiir intaas ku tagi doona waaya yaasino lacagaha la kala dhacay Djibouti xukuumadda ka jirta waxay aad khibrad u leedahay sida lacagaha loo dhaco dhicitaanka dhicid markaad maqsuudo malaayiin dollar Ismaaciil Umar Geli maxay ku kala dhinteen Muuse oo Muuse inkuu leeyahay cid Djibouti ma iman karto iyo waa cadowgeena waxa laga dhacay lacag u dhaxaysa 30 ilaa 50 milyan oo dollar wala jabsaday odayga wala jabsaday inta keen lacag halaasay lacag waayahay lacagaha dad isku jira oo waliba u badan beesha madaxweynaha ayaa lacagaha lahaa waxa ku jira yaasiino laba nin oo beesha habar jecelo kamida lacagaha in isgaarsiinta telecommunicationka loo geliyo oo sheera ku yeeshan baa haddaba dadka waa la dhacay madaxweynaha laga dhacay 50 milyan ee madaxweynihii Soomaaliland yaa dhacay talo waa su'aal meesha taalo laba dumar dhacay laba dumar warraga dhacay dawladda dhacda sugay macna waa in la saxanayo wax amal ma Ismaaciil ma dhicin ba Ismaaciil ma dhawaan ma dhicin Ismaaciil oo yaa dhac talo yeen karaan khadra xayd marwada oo isla tanaade ma inaad yartahay iyo gabadhii Saadiq Mahdi guursan jiray magaceeda Saadiq John haybado Saadiq Mahdi baa Saadiq John haybado Allah yakhliik wani magaceeda waa gabadhu bixiibe waa gabadhu asiga bixiye waa abtigu waxa iyo islaantii wala jizeed ayaa soo dhuftay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hebelo waa ku dhacay ma jirtin kan ku dhacday odagu markuu qeylqeyliyana dad badan baa lacagta lahaa wuxuu yiri qoladaas waxay soo gudbiyeen in geela arab waa nin ganacsada beesha arab ka socda ama ka tirsan oo iyagu ay dhaceen oo ay ku shaabadeeyeen inuu lacag ka dhacay oo hargeysa jooga ninkaas aad xoolaha iyaga nooga soo qaadi lahayd ama aad noo keeni lahayd isaga waaya hadaad wax wadid hadaad doonaysa lacagtaadante anana mid baa naga maqan taas keenta lagu siinay asnaabtana way bahashi meel adag ay gashay waaya bahal loo babadhig 50 milyan maanta loo oran karayo aynu odaynimo ku dhamayno oo beesha dhexe ee Soomaaliland ha u tagaan beesha dhexe ee Djibouti iyana maaha arrin dhaqan maaha way sax waa arrin kontrabaan luqluq way dhicidana mar hadii lagaaga horeeyo bis way waan iska dhaqaajis markii dad ku dhacdo sallallahu barik marka imisaad maqlaysid uu dhul dhacay Muuse wax badan 50 milyan inuu ka samro ay ahayd dadka reer Djibouti walaalnimadooda hore oo dhaan walaalay gacal been sax ay ahayd laakiin isagina rag kala farqi ku haysta oo lacag kule way taas waa yaabaya way xaaji faroole madaxweyne hore Abdiraxmaan Faroole ee Puntland isna waa la dhacay gacan marska sheegay run marka 12 milyan dollar ayaa bari reerkiisa oran jireen 12 milyan baa laga dhusi inda lillahi oday wala marsi talow ya xasan wadeeyin 12 milyan lacag la dhaqay ahayd laundry money oo laga soo qaaday piracy maxaa ahayd burcadbadeedii iyo isaga waxoogaa ku leh oo Dubai wixii baa la soo qaaday in lacagta Djibouti lagu dhaqo ayaa lagu leeyahay waaya isagana dumarkii baa dhacay wala marsi oday waa war Ismaaciil wuxuu iska dhigay niman ogeyn oo waxa ka waran kabayneen waxa loo dhibay lacagta in xayd Allah yarxamo bangiga haystay oo ay walaaliyihiin khadra xayd jaamacayd way jaamac maxamuud xayd oo lacagtii hayo 12 milyan ayaa tii Allah u timid dhintay markuu dhintay xoolihiisa wixii sidee ulaashi iyo madaxweynuhu baa sib dabcan xoolihii baa la qaaday waraqii gurigii iyo documents oo dhan ayaa meel lagu xariistay waayahay odaygii markuu arkay wixii tacsiida ka qayb gal baashadana hore soo qaaday faroole iyo laba noo wato meeshii bay tageen lacagtaas oo reer Puntland aan loo sheegin dadkana ka warhayn dadku aanay ka warhayn ayuu lacagtii leey casay baan doonay 12 milyan ahayd wuxuu Ismaaciil sida ugu dhaqsaha badan la magaalada uga baxa
وديك لو كحرة aniga lacag كنت ودي دي بتمية شرطة ماي ninka dhintay baan aqoon adigaan ku aqoon shaqadii qabsada ايش كيف ماشي 12 milyan ها Allah yarxam xaaskii hore ee madaxweyne Faroole ها oo iyadana reer macalin wax isku yihiin inaxid ها ayaa xiriirka samaysay وي inaxid waxay soo dirtay 300 oo kun oo ay tiri anu ma garanayo lacag waxaad ka sheekanaysaa meel martay لكن انت نيت anaga nin baaba naga maqan oo dhintay ها ina maanta idinku 12 milyan هذا نقب ستان ما بيهن oo qabstaan ma ahayn وي 300 oo kun ها يا الله صدري ay ku shaashahayeen ay soo direen وي ilaahay uu naxariisto mar raba arinta inaan galo صح laakiin gabadha afada uu qabay madaxweynuhu ها oo la dilay ها arrimaha loo dilay ها qayb bay ka ahayd ديل كاسيت dilka xiriirka 12 milyan ka وي ma raba inaan sii faahfaahiyo الله بيتوب كاس مليون halka ma dhaafayo وي teedi baa gashay waqti ma dhiman laakiin الله arrimahaas يرحمه. qayb bay ka ahayd وي ديل كده العقد كاسيت قاب كده ديلكيدي. وي Djibouti ها intaas oo xoolo ah ها oo intaas ay noogu yar انت انا قبته inta inaga qabto انت انا لوين كبر su'aalkan ku weydiinaya si هاي. in badan baad xiriirisa anaga صح madaxweyne xasan sheekh ها. wuxuu saaxiib dhow la ahaa Ismaaciil Bargel ها imise jeer buu tagay intuu madaxweynaha ماني تايمز Djibouti uu tagay uu soo noqday madaxweyne sarkeen ilaa gabadhaas la waa la bixiyay ها، haybadu. isna wiil ku bixiyay ها okay او قبل دونت waaya madaxweynuhu imise jeer baan mushbi Eritrea tagaa ماني تايمز many times ها. Eritrea iyo Djibouti maxay isku yihiin عدو cadow iyo col ها. madaxweynaha Djibouti ها xasan sheekh ها muxuu indhaweyd ugu tagi waayay Djibouti u tagi waayay دني oo cadowgooda ugu tagaa تن Ismaaciil Umar Gelno waa taqaanaa ninka ka jeesta ها. ee cadowgiisa ka kale la saaxiiba ها. oo isdilayaan طبعا waxaan ku sheegay marka in question markaas ايه تارده dadka Soomaaliyeed ها. ha u dhug yeeshaan oo ha fiiriyaan sababta xasan sheekh oo Djibouti saaxiib dhow la ahaa Ismaaciil Umar Gelno ها. ugu tagi lahayahay oo imika u door biday cadowgiisa in maalmo bato اسمرتكو asmara tago سوا جرت ina sabab baa jirta ها. sababta barnaamijka kale ayaan ku ogaan doonaa ayaan ku ogaan doonaa Waay. laakiin arrimahaas oo dhan Ha. ayaa ka jira reer Soomaaliland waxaan filaynaa berito Ha. in haddii eebaha uu dilay oo ogolaado in ilaahay arrintooda doorashada la kala wareejiyo doorashada xilka la kala wareejiyo Waay. xilka madaxweynuhu ma wareejinayo Hay. ayuu yidhi ilaa raggaas horta meesha ka maqlaadaan Waay. waxaa kaloo jirta yaasiin oo lacag kale oon hore u sheegnay ها oon nidhi madaxweynuhu wuxuu odhan doonaa lacagtaa ilaa aad bixisaan Ha. ama xilkeeda qaadaan dowladdiina cusub ها ma wareejinayo xilka lacagtaas waa boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka ان waxyaalaha ugu layaabka badan waxaa ka mid ah Ha. oo ay soo jeedisay dowladdii hore ها lacagaha Ha. 20 milyan oo ka mid ah bay dhahay Ha. nin sarifla baan ka qaadanay deyn sheekadaanid waxaa ka horreysay sheekadii farmaajo oo maaragtay dadka shaqaalaha oo maaragtay madaxtooyada joogay in korontada iyo ayaga ay bixin jireen marka hadda meeshay marowsaa 20 milyan Ha. nin sarifla ah ayaan ka qaadanay sariflu ma New York ma hadda hay waa sarifka Somaliland jooga meeshii saamiga xisaabaadka adduunka ma Ha. waa sariflu Somaliland jooga ma maqabe marka Cabdiraxmaan Riyo Ha. 20 milyan iyo 100 milyan oo kala ها sarif laaks ugu sarifla ka sugay wareer waay iminkana baran hay baran erga waa nagli shaqaqooyin iyo dagaal ka taagan colaadii wali waa sideedii way laakiin guddi loo saaray Ha. oo aan rabin inaan ka hortago Ha. ayaa nabadii doonaysa ilaaliso dadka isku raadinaya Ha. way ceergaabo Ha. dadka degan Ha. waxay ku celceliyaan Ha. dadku markay meelaha ka hadlayaan Ha. ceergaabo annagaa leh ceergaabo yaa leh ereyga ceergaabo yaa leh Ha. wuxuu ka mid yahay xanuun cudur ama virus beri dhow soo kordhay oo social media TikTok ugu badan oo la yiraahdo Muqdisho yaa leh Baydhabo yaa leh Burco yaa leh ceergaabo yaa leh ayaa indhoweedood maqlis طبعا marmarka qaarkood degmo yar tuula yaa leh balay si la isu dilo annagaa leh idinkaa leh ceergaabo waxa leh cidii ku nool ودقن oo degan Ha. ayaa iska leh yaa laga saaraya cidna lagama saar karo ninna gurigii uu dhashay laga saar maayo qofka jaanib oo dhibaato ku wada un baa laga saaray ha ma aha ninkii qori sita ayaa ceergaabo leh maaha Dabcan. ceergaabo dadka meesha degan baa wada leh boqol sirna ku celiyay هاي dad gaar oo meel iska leh ما جرو ma jirto وايه dad walaalaa oo mar walba u rajeyno inay safgartaan oo nabad ku wada hadlaan ها cidda dulmiga wadaana ay dulmiga joojiso صح yaasiin oo colaadii iyo shaqaqadii maanta aan ka sheekeynay dadka rasaasta lagu furay ee dukaanadooda la bilaqaystay wanaga niri qaar baa qaxay طبعا oo tagay magaalooyinka baxay waxay qaarkood gaareen hadalka waxaan u daleeyahay ها magaalada baran baran kow ama degmada baran way dadka baran tagay Ha. ee ceergaabo ka soo qaxay ها waa dadkii baran u dhashay ee ceergaabana u dhashay صح waa saxaafadii هاي
dad ay dhibaato soo gaadhay baa jira waxaa jirta maamo walaasheed baa ceergaba lagu dilay dhimatay Allah ciyaalkii rajayda ahaa oo dhan ayay soo urursay oo haysaa magaalada keentay keentay waxay u baahan tahay mucaawino taakulo dadka reer barameed dadka qurbaha jooga dadka Soomaaliyeed dadka reer ceergabo nin kasta oo diirna ay binaanimo wax tari karo iyadana ma iyadii laba kala saddex u baahan sax arrin la siyaasadeeyay baan rabaa inaan soo bandhigo marka si looga faa'iideysto dadka maatada ayaa dad doonaya in ay dhaqaale ku helaan waxay soo ururiyeen dumar ay la soo faqeen faqida mataqaana la soo shooreen oo ay yiraahdeen mudaharaad sameeya aad leeyihiin waxaan nahay qaxootigii ka soo qaxay ceergabo si aan dhaqaale u helno oo maanta gaajo u dhimanaya yaasino maamadu xaq u leedahay صح in gacan la siibaan kulan taageero yaan halkeeda khalad laga fahmin صح laakiin dad baa isticmaalaya oo keyska iyada soo hordhigaya dumar kale oo beena sawirka soo socota waxaad ka garanaysaa niyadda maamadu ay u hadlayso inay ka dhib tahay kuwa kale waxaad garanaysaa qaar ba xitaa si aan loo arag afka qabsanayo afkiisan ka qarsan waa dhuumanayaan qaarna waxay dhaanintan iyagoo kamar diidan waa dhuumo direct way anuu dadka hadlaya waxaan saa u leeyahay ayaa waan garanayaa hebel dhigi kartaa waaya waa dadka magaalada deganaa sax oo in waayeed tahay shirka ah iyo cabuur yaryar oo rajooyina oo hooyada lagu qashay ceergaa kaan arkay xaaladdiida in afka dhalka joogsaday ayaan maxay ahayd anigu ka soo qararay anigu xalaalo xabsi taajiri waxaan male gabdho foorn ayaa ku jira xataa kuwa hadda halka fariisiyay kuwa hadda fool taagan baa ku jira noogu liita waxbarashada ciyaalka hadda noogu daran dadkaasi waa dad guryahoodii ka soo barakacay ma haystaan hoy iyo hanti midna yaasinow markii madaafiicda la dhacay laascanood bilaa caleeg miyaad maqashay dad inta meel la soo istaajiyey soma yaacin la leeyahay gaajo u dhimanaya wax soo tara weli ma aragtay SSC baan sheegaya dabcan sanadka hore dagaal ka dhacay oo dagaal ka dhacay oo biska dhacay dad meel la soo tumay oo la leeyahay miyaad aragtay lacag dhaqaalaha siiyay ma arkin dhacdadan iyay noqonin dhacdo gobolka iyo degmada sumcadeeda lagu ciyaaro sumcadda magaalada hala ilaaliyo dadkan soo qaxay kamay soo qaxin Soomaaliya geeskeeda shishe sax ee magaalada driskiina soo qaxin eedadeedii habaryteedii wax ma yimaadeen sax si hoose ayaa wax loo tari karaya dabcan qofka si hoose ayaa qurbi joogta fariin loogu soo diri karaya dabcan intuba culayska in laga dulqaado dadkan wanaagsan tahay sax laakiin dadkii maaha adeerka cali in sawiradooda la public dhigtaan waxaan aad u diidaa waxaan arkay qof la siinayo maamo hooyinta loo yeero la siinayo qiimo gaaraya alaab $2 oo video laga duubayo iyadoo $2 ee caana boore gudoomaysa islaantaasi gabadh yar bay dhashay طبعا gabadhi markay birtu soo korto oo ay gashaanti noqoto oo guurdoon loo soo geed fadhiisto oo birito ay aragto sawirkii hooyadeed oo dawarsanayso caagad yar la siinay caana waxay ku keenaysaa iyada niyad jab صح waxay noqonaysaa in gabadhii la faacay ku yiraahdaan hooyada watan dawarsan jirtay islaantu way baahnayd xilliga la siinay wax dabcan laakiin xaq uma leh in sawir laga qaado oo loo soo bandhigo meesha siita ummadda صح tanna dadka doonaya inay ummadda weydiistaan iska qaadaan shareerka markaas waxa la tarayaa laakiin qof aan la aqoon laakiin saasaan ku warramaya وصانس iyo dadka barnaamijkan wata hal la joojiyo ayaan rabaa islaantan ciyaalka habarta waa haystay faraha badan leh iyo intii kale ee meesha joogtaba sida ugu dhaqsaha badan waxa loo taro hal caawiyo aad iyo aad baa mahadsantahay barnaamijkan waayahay cali aad iyo aad baa seen daawadayaal waxa halkaas noogu soo dhaw barnaamijkeena kaftanka tan iyo kulankeena dambe inta kulmada waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo amaana allah